kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo lagu soo rogay bandowgaasi oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka gudaha magaalada xilliga habeenkii. Ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay weerarkii ay ku qaadeen magaalada Baydhabo iyo sababta keentay weerarkaasi in ay ka fuliyaan gudaha magaalada Baydhabo. Qodobada kale oo aan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamo taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo weerar ku qaaday saldhigga iyo degmada Afgooye iyo xiisad halkaasi ka taagan. Qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulashada wararka oo inta badan aad ka daawataan Wama TV. Fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada kusoo biiri channelka subscribe noo saar muuqaalka like garay oo share garay. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta lagu soo rogay bandow culus dhaqan galaya caawa sida uu ku dhawaaqay wasiirka amniga Koonfur Galbeed ee maamulka kumeelgaarka ah. Wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray amaro ka soo baxay maamulka kumeelgaarka ah maadaama la galayo arrimo doorashooyin oo la filayo in la doorto hogaamiyaha Koonfur Galbeed ee cusub. Wasiirka ayaa sheegay in bandowga uu bilaabanayo 7 habeenimo una soconayo ilaa ay salaada subax isla markaana uu quseeyo dhammaan shacabka iyadoo la joojinayo isku socodka guud ee magaalada Baydhabo. Ujeedka waxa uu ku sheegay in la sugayo amniga maadaama loo diyaar garoobayo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha oo dhowaan la qaban doono ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in wax hub aan lagu dhex wadan karin magaalada si looga hortago fal kasta oo dhinaca amni darrada ah isla markaana lagu carqaladeyn karo amniga iyo hufnaanta doorashooyinka. Waxa kale oo uu fariin u diray dadka deegaanka oo ugu baaqay inay u hoggaansamaan amarada dowladda ka soo baxay ayna la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Magaalada Baydhabo haatan waxaa ku sugan ciidamada dowladda oo xoog kula wareegay deegaanada Koonfur Galbeed kuwaasi oo wada howlgallo guud oo amniga lagu xaqiijinayo waxaana isku fidiyeen gudaha magaalada iyo daafaha magaalada. Dhowaan ayay ahayd markii magaalada ay weerar ku qaadeen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen taabacsan kuwaasi oo dagaal la galay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo. Wasiirka wasaaradda amniga ee taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ka hadlay ujeedadii ay u weerareen magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in ay weerareen goobo kala duwan oo ka tirsan gudaha magaalada Baydhabo hadafkooduna uu ahaa in ay qaataan hub iyo saanad yaalay gudaha magaalada kaasi oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba hub ay horay uga tageen markii lagala wareegayay magaalada Baydhabo ee gacantooda ka baxaysay. Waxa uu sheegay in hubkaas iyo saanadaas military oo muhiim u ahaa ujeedka ay u weerareen magaaladana ay ahayd kaliya sidii ay u qaadan lahaayeen hubka iyo saanada culus ee military ee ka taalay qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay ku guuleysteen ay gaareen hadafkii ay ka lahaayeen weerarkaasi. Hase ahaatee mar la weydiiyay khasaaraha soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in khasaare uu jiro hase ahaatee uusan badnayn. Waxa sidoo kale la weydiiyay bal meesha uu ku sugan yahay wuxuuna sheegay inuu ku sugan yahay xaafad ka mid ah magaalada Baydhabo oo Baydhabo ay tahay magaalo weyn oo uu joogo xaafado aysan maamulin ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa la weydiiyay wasiirka doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed sida uu arko wuxuuna sheegay in doorasho ka dhacday Koonfur Galbeed aysan jirin balse doorashada ka dhacday kaliya ay tahay tii lagu doortay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Doorashadii laga qabtay Koonfur Galbeedna ay ahayd kaarar laga soo ururiyay bajaajleyda magaalada Muqdisho. Waa hagaag haddii aan intaasi kaga baxno qodobkaasina imankana Afgooye. Deegaanka Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta waxaa ka dhacay isku horimaad u dhaxeeyay ciidamo taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo maamulka degmada Afgooye. Ciidamadan ayaa waxa ay u dagaalamayeen sidii canshuurta ka soo xaroota degmada Afgooye loogu shubi lahaa ama ay ula wareegi lahaayeen Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo kooxdiisa. Hase ahaatee isku horimaad meeshaas ka dhacay ayaa waxaa suuragali waayay inay shaqeeyaan degmada iyo saldhigga booliiska ee degmada Afgooye ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana halkaasi hadda ka taagan xiisad colaadeed oo u dhaxaysa labada dhinac oo halkaa ay weli ku sugan yihiin ciidamadii taabacsanaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Ciidamadan oo horey uga tirsanaa ciidankii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa ay ka gadoodeen in dhaqaalaha laga soo aruuriyo magaalada Afgooye aan lagu shubin qasnada wasaaradda maaliyadda ee Koonfur Galbeed. Hase ahaatee hadda waxa ay taageereen ayaa la leeyahay ciidamadani Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Hase ahaatee ciidamadan ayaa waxaa la sheegayaa hadda inay taabacsan yihiin
oo ku aragti yihiin Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan. Fadlan daawada haddii aad horey noola joogtay barnaamijka like garee oo share garee, haddii aad hadda nagu cusub tahayna kusoo biir baraha aan ku leenahay bulshada oo channelka subscribe noo saar, Facebook noo follow garee.